Culimada iyo waxgaradka degmada Awbare ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay bulshada ugu baaqayaan in laga soo wada qayb qaato dhismaha madrasada Cumar ibn Khattab ee degmada Awbare taasi oo ay dhulkan iska kaashadeen iibintiisa macallimiinta iyo maamulka markiiska Cumar ibn Khattab ee degmada Awbare oo ku jira dhul aanu isagu lahayn taasi oo ay dhulkan u iibiyeen isla markaana ummadda muxsiniinta meel kasta ay joogaan ay ka codsanayaan in laga soo qayb qaato dhiskaasi. halkan aan joognaa waa magaalada Awbare weeyaan halka aad arkaysiin waxa weeyaan waa jagaan iibinay oo saddex macallimiin ah oo isku tagay ay iibiyeen weeyaan kolka magaranaysa muhiimadda aan iibinay waxa ahayd in magaranaysa baahi loo qabo oo ardayda ay u qabto awgeed ayaan ugu iibinay insha Allah magaranaysa waxaan ku dhiganay masaajidka yani beesha yani saddexaad ku yaala Cumar ibn Khattab oo yani Itoobiya yani magaranaysa ku yaala ayaa magaranaysa ayaan ku dhigi jirnay hal maqsin oo magaranaysa ciriiriya ayaan ku dhigi jirnay saadaradeed maadaama magaranaysa ay ciriirigaasi iyo ardaydo yani soo badatay awgeed aan magaranaysa baahi jirta awgeed aan magaranaysa asniri oo aad u baahan tihiin ayaan magaranaysa aan halkan u iibinay insha Allah waxaan leenahay dadka islaamka in magaranaysa ay naga soo caawiyaan ayaan magaranaysa aan ugu baaqayaa yani meel kasto yani laga joogo adduunyada saas baan yani magaranaysa aan baaqayaa wax magaranaysa magaranaysa dhaxdino nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam man bana masjidan bana Allahu yani masjidan baytan fil janna qofka masaajid dhasa yani jannada ayuu magaranaysa guri ayaa isna aakhira looga dhisaa ayaa nabiga yiri kaleey salaatu wasalaam kolka waa sadaqatul jaariya weeyaan yani madaaristana waa la mid oo yani waa khayra waa yani waxyaabaha magaranaysa weeyaan yani sida masaajidada magaranaysa hadii ilaahay laga helayo madaarista ceel magaranaysa la qodo isna waqfi noqonaya magaranaysa waxyaabaha waqfiga ay ka mid yihiin waxaan leeyahay magaranaysa yani halka la soo caawiyo oo magaranaysa halna soo caawiyo insha Allah hadii ilaahay raado ilaahay dadina lagu soo caawiyo isku tagaas yani magaranaysa macallimiinta isku tagaasi saas bay codsanayaan halkan joogna waxa weeye degmada Awbare meel kamid ah degmada Awbare kamid ah maxaan warakilka shanaad walaalayaal waxaan insha Allah taala sheekhu bay idin sheegay dhulka naga dambeeyay oo banaan ayaa la iibiyay waxa loo iibiyay in maxaan ku arday wax lagu dhigo madrasada laga dhigo dhulku waa banaan yahay waa dhul dhan maxaan ku 10 mitir ilaa maxaan ku dhanna maxaan ku 30 mitir dhulkan marka dhismihiisa insha Allah taala ayay maxaan ku macallimiintu leeyihiin dahla naga caawiyo wayna u baahan yihiin runtii waa dhul aan dhisan karin oo ka xoog roon marka waxaan muslimiinta meel kasta joogaanba u sheeganaa aday baratay aday dhulka kala tahayba in dhismaha madrasada ee halka laga dhisayo goobta ay ka dambaysa walaalayaal in laga qayb qaato oo laga soo caawiyo oo dhismo maxaan ku raadaa haboon oo ardayda wax noogu barato laga dhiso walaalayaal halkan aan joognaa waxa weeyaan xaafada saddexaad madrasadana waxa loo dhagax dhigay khaasatan waa xaafada saddexaad marka muhiimaddu waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa oo u cilaaminaynaa bulshada ka soo jeeda kow horta xaafada saddexaad waxa geel horta shafku ka tuustaawayna marka inay horta kow ay xaafada saddexaad shacabka jooga rag iyo dumar ay mutadawacnimo ay la yimaadaan ay ku darsadaan khayraadka halka ka magaranaysa laga iibiyay Awbare dhammaan iyo jaarashan oo dhanba cid kasta oo jecel samaha yani waxa weeyaan waxaan ku bogaadinaynaa oo ku dhiirigelinaynaa inay macallimiintaasi iskooga isku xilqaamay khayr Allah ka siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waxay la baxeen waxaan doonaynaa in lagu dhiirigeliyo lagu taageero lagu isku garab istaago cid kasta rag iyo dumar waxaan ka doonaynaa in hawshaas ugu dhaqsaha badan leh loo dhaqaajiyo lagana soo xiriiro Shucayb oo iyo Sheekh Xuseen iyo cid kasta oo magaranaysa danaynaysa khayraadka if iyo aakhiraba anfacaya ummadda